الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه وأحيا سنته إلى يوم الدين أما بعد درسيا إن شاء الله تعالى وحان كغا هدينا ودرسيي أفراد أحكامة الصلاة وحان كسو هذا اللي حكم تارك الصلاة درسيي هوري وحان كسو هذا يعني تارك الصلاة كحكم كيس معي علماء كدهن كان إن شاء الله تعالى وحان كغا هدينا في الزجر عن تأخير الصلاة عن وقتها صلاة ديب لو دغو oo gadaal laga tukado maxay diintu ka dhahday qaala subxaanahu watacaala ilaahay wuxuu yidhi fakhalafa min bacdihim khalfun adaacuu asalaata waattabacuu ashahawaati fasawfa yalqawna gayyaa ilaa man taaba waaamana wacamila saalixan faulaa'ika yadkhuluuna aljanna walaa yudlamuuna shay-a fi suurati maryam fakhalafa min bacdihim qoladaa waxaa ka gadaal maray khalfun qolo kale oo xunxun kuwaasoo adaacu salaata salaaddii halleeyey waatabacu shahawaati waxay naftoodu jeceshahay bay iska raaceen fasawfa yalqawna hadda kadib bay geli doonaan baa layidhi hayan fasawfa yalqawna waxay geli doonaan hayan toga hayi la yidhaah waa tog naara ilaa man taaba ninkii toobo keena weeyaane wa aamana oo ilaahay rumeeya ruuxa toobo keena dabcan ilaahay uu ka tooba aqbali oo wa camila saalixan camalkii xumaa uu sameeyey ku fiican ka dambaysiiya mooyaane kuwaa mooyaane dadkaa xunxun ee salaada dib u dhigay togaa qayi la yidhaha bay galayaan buu alla yidhi subxaana wa tacaala falidaalika cabdallah ibnu cabaas markuu fasirayay aayaddan qaala cabdallah ibnu cabaas radia allahu canhuma laysa macnaa adaacuuhaa tarakuuha bilkuliya wuxuu leeyahay cabdallah adaacuuhaa macnaheedu ma aha inay salaada ka wada tageen iyadoo dhan walaakin akharuuhaa can awqaatihaa wuxuu yidhi laakiin waqtigeeda dib uga dhigeen falidaalika togaasay galayaan waqaala saciid ibnu musayib wuxuu yidhi imaamu taabiciin raximahullah saciid ibnu musayib wuxuu ahaa taabiciintii imaamkoodii buu ahaa nin aada u taqwo badan buu ahaa oo fiican huwa arrintu waxa weeyaan buu yidhi allah yusallii inuuna tukan aduhra duhurka xataa yaati alcasru ilaa casrku ka yimaado walaa yusalli lcasra casrna ma tukanayo ila lmaqribi ilaa maqribku ka galo walaa yusalli lmaqriba maqribna ma tukanayo ila lcishaai cishaagu ka soo galo walaa yusalli lcishaa cishana ma tukan ila lfajri fajrka laga gaadho walaa yusalli lfajra fajrna ma tukanayo xataa tadluca ashamsu ilaa cadceedu ka soo baxda buu yidhi marka taakhiirka la sheegi waa kaasuu isagoo ku fasiray marka laba tafsiir weeye cabdallah ibnu cabaas wuxuu yidhi salaadoo dib loo dhigan weeye saciid ibnu musayibna wuxuu yidhi waa salaadaha oo uuna tukanin ruuxu ilaa salaaddii kale soo gasho oo tay kale ka tagto oo salaadii o dhan ka tageen marka labada masaleba laba masalo isku dhadhan weeye oo aada khatar u ah weeyaan oo ruuxa muslimkaa loo baahan yahay inuu aada isu ilaaliyo oo salaad uuna ka tegin weeyaan faman maata ninka dhinta wa huwa musarun calaa haadihi alxaala ruuxa isagoo hawshaa sidaa ku socda ku dhinta walam yatub oon toobo keenin wacadaha allahu ilaahay wuxuu u ballan qaaday biqayin qayi inuu galo wa huwa waadin fii jahannam baciidun qacruhu khabiithun dacmuhu waa tog naara qayiga lagu sheegi oo jahannamo ku dhex yaala baciidun qacruhu salkiisu fog yahay khabiithun dacmuhu dhadhankiisuna aada u khadhaadh yahay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ku yidhi fii aaya ukhraa aayad kale wawaylun lilmusalliina aladiina hum can salaatihim saahuun fawaylun tog naara waxa iska leh lilmusalliina kuwii tukanayay alladiina kuwaasoo iyagu can salaatihim salaadooda saahuuna ka halmaansanaa saahuuna ay qaafiluuna canhaa mutahaawinuuna fudaydsanhaya salaada bihaa iyada
وسئل ولا ويدي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ولا ويدي عن الذين هم عن صلاتهم ساهون وأيا ليدت كان صلاة ساهون تا قال وحول هو تأخير الوقت صلاة أي تأخير الصلاة عن وقتها صلاة أدب لورد قويان وقت كذا أو قدر لقيته كذا سماهم إلهي وكم مقعاب المصلين وابدت كان هي اللي موجودين لكنهم لما تهاونوا بها مركي صلاة إسكاد بيريستان وآخرها عن وقتها وقت كذا ندب وقد وعدهم إلهي وبلن قاضي بواد تب وهو شدة العذاب بويل تب نارا وهو شدة العذاب وعذاب درن وقيل وحل هو واد واتب في جهنم كجرة عدد كياله لو سيرت به جبال الدنيا بوره دورن هدي لقلين لها لذابت ودلال لهيد من شدة حره كل الكيس درت وهو كاسنة مسكن من يتهاون بالصلاة ويؤخرها عن وقتها ماشي أي قال الدونان ويه دتك الصلاة فضيت صدي ووقت يدا دب وقدقي إلا الروح إنه توبة كانوا إلهي وتوبة كانوا ويه ويندم على ما فرض ووحى وكد قفين وكتوبة كانوا ويه هذا كتوبة كانوا ويان سدا سي وقليان نار تاويان إلهي هاي نقلنا بتقليه وقال تعالى الله وحي في آية أخرى إلهي آيات كلا وحكي يا أيها الذين آمنوا كو إلهي النبي رميو يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يا أيها الذين آمنوا ضدك الله لي ومؤمنينتي لا تلهكم أموالكم حولهن ين إذن هلاقن بالي وين إذن مشغولين ولا أولادكم عرورتين ين إذن هلاقن عن ذكر الله ذكر إلهي ين إذن كمشغولين وين إذن هلاقن معناها هداد كتكتان دي ذكر إلهي عذاب كل سنوات كهلك سنتان ويان ومن يفعل ذلك نينك سدا السمية ذكر إلهي كمشغولة حولهيسا عرورتيسا دنيهيسا كمشغولة أدونك وصلاة دي كتغا فأولئك هم الخاسرون كواس وكو خساري بإلهي ماشان آيادو waxay ka digaysaa in adduunyo lagu mashquulo caruur lagu mashquulo oo cibaadadii laga tago laakiin macnaha ma aha inuuna ruuxu caruur samaysanayn inuuna shaqaysanayn macnuhu ma aha waxaa la diidan yahay inuu ruuxu asxaabu dunya uu noqdo oo uu ka tago diintii ka tago isagoo maxaanku idhaahaa uga tegaya adduunyo darteed وعن عائشة وحال قوري رضي الله عنها عائشة وحال قوري قال واحد ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نبي قمتك الولي الصلاة لوقتها الأخير وقت قيد الدنب كمتك حتى قبضه الله إلى وكرنتين خرجه الحاكم في مستدرك وصححه على شرط البخاري الشيخين حديث كا إمام حاكم باوحكوري كتاب مستدرك الليلة سنة كيسر وصحيحي على شرط الشيخين طيب وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال له ويديي أي العمل أفضل عمل معها وقفض لبدن قال وحي أفضل العمل عمل وحا وقفض لبدن الصلاة لوقتها صلاة وقت هذا اللي كنت كذا وبر الوالدين لبدا والده الله بار النقضه والجهاد في سبيل الله إله جد كسو اللي قد قالمه والجهاد رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح رق وريينه سنن كان لو يا حسيت حديثك صحيح هي كجران ولو حجيستا والروي وعلى وري انه من صلى الصلوات نينك صلاه كذا لوقتها وقت كذا نينك كنت كذا واسبغ لها وضوءها سفي عن ويسيستا واتم لها قيامها او سفي عن اسوتاغا وخشوعها صلاه اوغوي يركوعها وسجودها سجود الركوع دي هجاجيه خرجت ويبيح صلاه وهي بيضاء يدو عد مصفرة يعني عدانة تقول وحورا حفظك الله أكو حفظه كما حفظتني سيدي حفظي ومن صلاها صلاة إن كنت كذا لغير وقتها وعن وقت كذا إن كنت كذا ولم يسبق لها وضوءها ويسد عن لما يسترن ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها لما ينتر ولا سجودها عن لما يسترن خرجت صلاة ويبحي وهي سوداء يدو مذوب مظلمة يعني مدوء داقة
taquulu waxa odhan dayacaka allahu allaha ku halleeyo kamaa dayactanii saad ii hallaysay xataa idaa kaanad markay ahaato xaydu shaaa allahu meeshii alla doono markay gaadho lufad waa lasoo duuduubaa kamaa yulafu thawbu sida loo duubo marada alkhalaqu ee baaliyowday marada gabowday tuma duriba waxaa la garaacaa lagu dhuftaa bihaa iyada wejigiisa lagu soo dhuftaa oo alla kaama aqbalay naga qaadaa la yidhaha qabso waxba lagama aqbalin wejigaa lagaga soo dhufanayaa waa ruuxan salaada dhammaystiray shuruudeeda iyo qiyaamkeeda sujuuddeeda rukuucdeeda weysadeeda waan ka soo hadlay runtii salaaddu wax badan bay leedahay kulli waxay u baahan tahay in lasoo dhammaystiro can cabdallah ibnu camar waxaa laga wariyay ibnu caas radia allahu canhuma qaal rasuulu llahi sal lla ly slm nabigu wuxuu yidhi halaathun saddex laa yaqbalu allahu minhum salaatan saddex ilaahay salaad kama aqbalo okay man taqadama qowman wahum lahu kaarihuun ninka qoro hormare ee imaam isaga noqday iyagoo karhaya wa rajulu nin ata salaata salaada ka tukada dibaaran xag dambe oo dib u dhiga wadibaar waxaa looga jeedaa an yaatiyahaa bacda an tafuutahu kolkay tagto kadib unbuu tukadayaa wa rajulun ictabada muxararan ninka addoonsada ruux hora oo macnaha addoon ka dhigta rawaa abu daawuud baa xadiidkaa warinaya wa ibnu maajahna uu wariyey wa ruwiya waxaa la wariyay annahu man jamaca bayna salaatayni ninka laba salaadood isu keena min kayri cudurin cudur la-aan faqad ataa wuxuu la yimid baaban albaab oo min abwaabilkabaa'iri dembi weyn oo kabaa'irta kalamida ayuu keenay maxaad salaada u jamcinaysaa dadka qaar baa hadda waxa weye isagoo safar ahayn oon meel la aadin oo waxba hayn buu salaadihii iska jamcinayaa waa kasal ama waa kas waxay noqotaba yacni nin ribo dhexgala weeyaan ribadana dee ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka markuu ku sheegay aladiina yaakuluuna alribaa laa yaquumuuna ila kamaa yaquumu aladii yatakhabaduhu ashaytaanu min almas dalika biannahum qaaluu inama albaycu mithlu alribaa waaxala allahu albayca waxarama alribaa faman jaa'ahu mawcidatun min rabbihi faintaha falahu ma salafa waamruhu ila allah waman caada faulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun ribada waxaa la yidhaha waa qaybo badan dhowr iyo 70 qaybood weeye marka ninka hadda salaada dib u dhigo oo kale waa nin qayb ribo kamida la yimid ribadan kale caadigeed la cunaana waa taa hadda aan aayadda aqriya aayaddu ka sheekeynayso iyo xadiistu waan ibn cabaas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi idaa kaana yowmu lqiyaama markay maalinka qiyaamadu gaadho yu'taa waxaa lala iman birajuli nin baa la keeni fa yuuqafu waa la joojin beyna yadayillahi ilaah hortiisa caza wajal ilaahay baa la hor keeni fa yu'maru bihi ila naar naartaa loo amray waxaa loodhan naarta u qaadaa loodhan fayaquulu wuxuu odhanaya yaa rab limaada maxaa igu dhacay maxaa naarta laygu toori fayaquulu llahu tacaala ilaahay baa odhanaya lita'khiirika asalaata can awqaatiha salaadda aad dib u dhigi jirtay wa xalfuka bii kaadiban iyo dhaartaad igu dhaaran jirtay adoo been sheegaya laba arrimood baad naarta lagugu qaadi baa laleeyahay waa loo caddeeyey ood naarta ku galaysaa waa maxay midi waxa weeye salaaddaad dib u dhigi jirtay ta kalena waxa weeye dhaarashadii alla aad ku dhaaranaysay eed been ugu dhaaranaysay dayib xikaayatun can bacdi salaf meeshan waxaan ka sheegaynaa qisooyin laga soo wariyey salafka oo salaada ta'khiirkeeda ku saabsan ciqaabteeda inahu ataa ukhtan lahu maatat ninbaa wuxuu u yimid walaashii oo dhimatay fasaqada kiisun minhu fiihi maalun fii qabrihaa ninbaa wuxuu ka mid ahaa dadkii gabadh aasay gabadhaasna walaashi bay ahayd qabrigii markii gabadhii lagu aasay waxaa ku dhacay baa la yidhi waladkiisii ama jeebkiisii oo lacagi ku jirtay yaa qabriga kaga dhacay falam yashcur bihi maba una dareeminba axadun ruuxna xataa insarafa can qabrihaa ilaa qabrigii laga tegay oo lagu rogay gabadhii la aasay
dabcan yani jeebkaa lacagta ku jirtayna qabrigiibu ku dhacay. uma dakarahu wuu xusuustay markuu tegay kadib muddo kadib buu xusuustay, wuu soo noqday, waa soo noqday, wuu xusuustay, wuxuu yidhi war lacag baa igaga dhacday qabrigii. farajaca ilaa qabriha qabrigiibuu ku soo noqday. fanabasha bacdama insarafa annaasu, kolkay dadku ka tegeen kadib ayuu qabrigii qoday. fawajada alqabra qabrigii buu arkay yashtacilu calayha naar, qabrigii oo gubanaya oo gabadhii ku gubanaya u arkay. faradda turaaba calayha, caradiibuu ku celiyey waana ka cararay. warajaca ilaa ummihi, hooyadiibuu ku noqday baakeen isagoo ooyey xasiinan aada u murugsan. wa qaala wuxuu yihi yaa ummaha, hooyey akhbirnii bal iiga waran can ukhti walaashay wamaa kaanat tacmalu, walaashay bal iiga waran maxay samayn jirtay. qaalada waxay tidhi, hooyaa u jawaabtay, wamaa su-aaluka canha, oo maxaad ii weydiin. qaala wuxuu yidhi yaa ummii, hooyoy ra-aytu waxaan arkay qabrahaa yashtacilu calayha naar, qabrigeedii oo ku gubanhayo un baan arkaye, oo waxa weeyaan intaan dee meesha lacag igaga dhacday kasoo qaaday isidhi ayaan waxaan arkay gabadho qabriga ku gubanaye, bal ii warranoo maxay samayn jirtay gabadho. qaalada hooyadii baa waxay tidhi, fabakad, iyadoo oyday. wa qaalad waxay tidhi, hooyii intay oyday ba waxay tidhi, yaa waladii wiilkaygiio, kaanad ukhtuka walaashaa waxay ahayd, walaashaa tatahaawanu bisalaa, salaaday fudaydsan jirtay, wa tu-akhiruhaa can waqtihaa, waqtigeedana dib bay uga dhigi jirtay. marka walaashaa salaaday fudaydsan jirtay, waqtigeedana kuma tukan jirin, dib bay u dhigi jirtay weeyaan. fa haadaa xaalu man yu-akhiruhaa salaata, dad can waqtihaa, kani waa dadka dib u dhigaya. fa kayfa xaalu man laa yusalli, bal ka waran marka kolkii la cadaabayo ruuxa salaada dib uunu dhigay, kaan tukan bahayn bal ka waran. fa huwa ashaddu minhu cadaaban, wuu ka cadaab daran yaha weeyaan. fanas'alu allaha subxaanahu watacaala, ilaahay waxaan weydiisanaynaa tacaala sareeye, an yuciinanaa inuu noogu kaalmeeyo cala almuxaafadati calayha, salaada in la xifdiyo, xifdigeeda fii awqaatiha, waqtigeeda lagu xifdiyo inuu inoogu kaalmeeyo. inahu jawaadun, ilaahay ka deeqda badan way kariimun, oo ilaahay inahu jawaadun ka deeqda badan way kariimun oo wanaagsani. ilaahay subxaanahu watacaala haynoogu kaalmeeyo, aamiin. salaada ilaahay haynoogu kaalmeeyo in macnaha waqtigeeda lagu xifdiyo. waxaa kaloo ay salaaddu u baahan tahay in yacni salaada yaraanta ruuxa lagu tarbeeyo oo la baro. warawaa abu daa-uud fi sunan wuxuu ku wariyey ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaala, nabigu wuxuu yidhi, muru sabiya bisalaati, ilmaha yar salaada ha la amro, idaa balaqa 7 siniin, 7 sano markuu gaadho. wadribuu calayha ibnu 10 siniin, markuu 10 sano gaadhana hadduu ka tago ha la edbiyo. xadiidun xasanun rawaahu abu daawuud watirmidi. wafii riwaayatin muruu awlaadakum bisalaa, caruurtiina amra salaada, wahum abnaau 7 siniin, iyagoo 7 sano jira. wadribuuhum calayha ku garaaca, wa abnaau 10, 10 sano iyagoo jira. wafariquu baynahum fi lmadaajici, hurdadana ku kala geeya. xadiidun xasan rawaahu abu daawuud biisnaadis xasan. qaala alimaamu abu sulaymaan alkhitaabi raximah llah, hada alxadiid yadullu calaa iqlaadi alcuquubati lahu idaa balaqa taarikan laha. wa kaana bacdu asxaabi alimaam ashaafici raximah llahu tacaala yaxtaju bihi fi wujuubi qatlihi idaa tarakahaa camdan bacda albuluuq. qaal waxayba dheheen hadduu isagoo yar ka tago in la dilo markuu weynaado. laakiin wayaquulu wuxuu odhan jiray ida istaxaqa darba, markii garaacisba uu mutaystay isagoo yar, wahuwa gayru baaliqin, fayadullu calaa annahu yastaxiqu bacda albuluuqi min alcuquubati maa huwa ablaqu min adarbi bay dheheen. kol haddii isagoo yarba la yidhi hala garaaco, kolkuu weynaadana in la dilay ku tusinaysaa bay dheheen. walaysa darbu shay-an ashaddu min alqatli, macnaha dilka kama liito darbiga lagu sheegi. laakiin darbiga halkan la sheegayaa ilmaha in la yar edbiyo un baa loo jeedaa. laakiin in la dilayo oo ruuxu saaliku salaad hadduu yahay la dilayo, waan soo maray ra'yigaa. waxaa qabay imaamu shaafici iyo imaamu malik yaa qabay. labada imaamka kale, imaamu axmed wuxuu odhanayay waa gaal, isagaa ugu adkaa, diintuba ka baxay waaba gaalba. imaamu abu xaniifana waa kii yidhi hala xidhoo jeelka ha ku jiro ilaa uu ka tooba keenayo. ilaahay subxaanahu watacaala haynagu xifdiyo salaada, haynaga dhigo dadka salaada xifdiya.
insha allahu tacaala intaan dersiga kale ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa calaa assalaama insha allahu tacaala wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh